guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Injirta madaxa waa cayayaan aad u yar oo qiyaastii waxay dhan tahay mirta sisinta. Inta badan jirkoodu waa wax midab beddelan oo dambasi ah, laakiin midabyada way ku kala duwan yihiin. Waxay ku nool yihiin madaxa iyo qoorta ee tinta dadka hoosteeda. Waxay ku nool yihiin iyagoo cuna madaxa basada ee qofka oo dhiigga qofka ayay quutaan maalinta oo dhan. Injirta madaxa cudur ma faafiyaan ama qofka jiro kuma ridaan, balse waa cayayaan oo cuncun kugu rida, oo sidoo kale si dhaqso ah ayay ku bataan. Injirta qaangaarka ah waxay dhigaan ukuntaasoo loogu yeero qanjicil, oo ay dhigaan madaxa basada meel u dhow oo timaha ay ku dhegaan. Ukuntu waa wax aad u yar oo inta badan waa jaalle ama caddaan. 12 maalmood kadib, injirta oo markaas ukunta ka soo baxday waxaa loogu yeeraa injir yar. Kadibna way qaangaaraan oo iyaguna iskood ay ukun u dhigaan. Injirta madaxa waxay sii noolaataa ilaa iyo 28 maalmood oo maalintiiba 10 ukun ayay dhigaan. Injirta madaxa qof kasta ayay geli kartaa. Waxba laguma jeedo inta jeer ee aad timaha iska dhaqdo ama sida uu gurigaaga nadiifka u yahay. Waxba laguma jeedo halka aad ku nooshahay, halka aad ku ciyaarto, ama halka aad ka shaqayso. Injirta madaxa inta badan waxaa laga helaa oo ay gashaa ilmaha dhigta iskuulka xanaanada ka hor, ama kuwa jira da'da dugsiga hoose, iyo dadka aqalka qoyskooda ku nool. Maxaa yeelay injirta ayaa taabashada ku faafta. Injirta madaxa kuma faafto xayawaanka guriga lagu rabaayaysto, oo ma boodi karto, ma duuli karto, iyaga oo madaxa qofka ku garguurta oo uu qofba qofka kale gala inta ay hal meel ku wada jiifaan ama inta ay wada ciyaarayaan. Injirta madaxa ayaa sidoo kale ku faafta marka la wadaagayo koofiyadda, jaakooyinka, camaamadaha, shandada timaha, ama shukumaanka. Astaamaha lagu garto in qofka madaxiisa ay injir ku jirto waxaa ka mid ah cuncun madaxa ah, in timihiisa dhexdiisa wax ka dhaqaaqayaan, iyo camaamasho dhanka dambe ee dhagaha ama dhanka dambe ee qoorta. Cuncunka ma bilowdo ilaa laga gaarayo toddobaadyo inta madaxa ay ku jirto, oo toddobaadyo ayay ku sii jiri karaan ilaa injirta ay ka baxdo. Baaritaan joogto ah oo timaha injirta laga baaro ayaa ah qaabka ugu fiican ee lagu ogaanayo ka hor inta aysan helin waqti ay qofka madaxiisa ku bataan iyo ka hor inta aysan ku sii ballaaran. Cunugaaga madaxiisa ka raadi injir ku socota iyo ukunta oo qanjicil cadcad ama jaalle uga tagta iyadoo ku dheggan basada timaha ee qofka. Si fiican u fiiri dhanka dambe ee dhagaha ama dhanka dambe ee qoorta. Sida ugu fiican ee qofka injirta looga saari karo waxay tahay in madaxa isaga dhaqo shaambo gaar ah oo injirta saarta. Waxaad ka soo iibsan kartaa dukaamada farmashiyaha ee xaafadaada. Raac tilmaamaha ku qoran sanduuqa. Headlights, Somali 11.11. Kadibna isticmaal shanla afkeeda dhuuban oo kula timaada si degan oo taxaddar ugu shanlee dhammaan wixii injir iyo qanjicil timaha ku jira oo dhan uga soo saar. Canuga madaxiisa maalintiiba 2 ama 3 jeer u shanlee si aad uga saarto injirta ama qanjicilka laga yaabo in marka koowaad aad ka tagtay ama markaas kadib ukunta ka soo baxday. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato in aad mar kale shaamba aad ku dhaqdo timaha 7 ilaa 9 maalmood kadib marka koowaad ee aad shaambada ku dhaqday kadib.
sidoo kale waa inaad iska dhaqdaa dhammaan dharka iyo firaashka sariirta ee qofka uu isticmaalay. Xayawaanka boombalaha oo aan la dhaqi karin waa in 2 toddobaad lagu xareeyaa bac balaastiig oo afka si fiican looga xiray. Shanlada iyo buraashka waa in biyo kulul la dhexgeliyaa ilaa iyo 10 daqiiqadood. Haddii qof ka mid ah dadka guriga degan ay injir madaxa uga jirto, waa in qof kasta injirta laga baaraa. Xasuusnow, qof kasta injir way geli kartaa, waxba ugama jiraan sida aad nadiifku u tahay. Si joogto ah injirta u baar, oo haddii aad hesho sida ugu dhaqsaha badan uga saar si markaas aysan u faafin. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.